السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan doonayaa barnaamij yar inaan la qaybsado. waxaana igu kalifay inaan dood ka bixiyo oo arrin iga socotay media maalmahan oo khusaysa awdal, Jabuuti, Diridhawa, Berbera inta u dhaxaysa. dhulkan waxaa lagu noolaan jiray muddo fara badan oo aada u dheer. ciise, gadabursi iyo habarwal waxay ku noolaayeen dhulkan muddo aada u dheer. waxay ahaayeen dad la baacmishtiraa adduweynaha. waxay ahaayeen dad ka soo hadhay xadaaradihii islaamka ahaa waqtigii cabaasiyiinta inoo bilaabmay. markii hore adulis ka bilaabmay. raalli ahaada. adulis waxa weeye waa ku taala Eritrea. marka adulista iyo awdal ayaa isku xidhnaa, iyo muqdisho sida warkaan ku hayo, iyo in Ethiopia imika maanta daaga hore Abyssinia la odhan jiray. marka centerka islaamka oo ahaa muxuu ahaa Harar, oo markaa xukumi jiray dowlado madax bannaan oo ay ka mid ahaayeen sida Hadiya oo kale, Ifat. marka waqtigii cabaasiintay bilaabmeen, cilmi badan baa ina soo galay waagaa oo saylac inaga soo galay. cilmigaas ahaa cilmi aada u sarreeyay waqtigaas socday, oo islaamka, xidiginta, waxaan u naqaano faalka, qur-aanka, shareecada, oon wixii naga anfacay aan qaadanay. maadaama ay saylac ahayd magaalo metropolitan ah oo dadoo dhan bay iskugu yimaadeen oo ay la baacmishtiraan, laakiin kuma dhici jirin haba yaraatee inay soo dhex galaan Soomaalida. mamnuuc bay ahayd. haday soo galayaanna islaamnimo ay kusoo geli jireen. dadka badanaa ilaalin jiray sida runta dadka buugtu ay qortay inay ilaalin jireen waa dadka ciisaha. buugta waxaan ka helay qarnigii 19aad, 200 sano ka hor, 150 sano ka hor, inay leeyihiin ha isku tegina Soomaaliya. haddaad tagtaanna dhulka ciisaha iyo gadabursiga iska ilaaliya, ha marina, ha tegina. waxay ilaaliyaan xadaaradda islaamka ee Harar. qofkii ka soo dega badda nolol kuma soo laabto. saasay qori jireen, saasay qoran, waa wax qoran wey. lama sheegin dhulka ciisaha nin ajanabiya oo dhex maray. mar kastaba waxay ogaayeen qofka ajanabigii inuu xumaan wado. waxaa ka mid a xumaanta ay wadaan oo kale cudurro inay wadaan. qofka badda ka yimaada inuu had iyo jeer dhib la socdo, ama uu sahan yahay oo ka horeeyo col soo socda. marka qofkii ugu horreeyey ee tega muxuu ahaa soo gala saylac yimaada, nin la odhan jiray Sir Richard Burton. waxaa lagula taliyey oo oday habar yoonisa oo sharmarka la odhan jiray ayaa markaa u ah qusul oo kale dowladda Ingiriiska. dowladda Ingiriiska way kusoo dhici weyday inay timaado meesha. sharmarka oo ahaa askari booliisa oo markii dambe baacmister noqday, ayaa wakiil ka dhigatay inuu saylac tago oo muxuu ahaa wakiil u noqdo. Richard Burton markuu u yimi wuxuu ku yidhi dhulku muxuu ahaa nabad maaha, ma tegi kartid, laakiin haddii aad tagto dad baan kugu darayaa dhulka gadabursiga mar. iyakaan u malaynaya inaad ku nabadgelaysa. ciisuhu qof ajanabi ah, ama carab ahaw, ama caddaan ahaw, ama hindi ahaw, sabab
nolol kalama soo noqonaysa. markaa ninkii rag baa soo kaxeeyey, harar baa la keenay, harar buu indheeyey. wixii laga sheegayey harar ee lalahaa waa dowlad weyn oo islaama oo khatar ah oo sidii cusmaaniyiinta oo kale ah, mauba aragay. wuxuu ku leeyahay waxaan arka uun muxuu ahaa askar yaroo caata oo warma iyo wata muxuu ahaa waxyaaba noocaasa oo magaalo xayndaab ku xidhan yahay, uuna u ogolayn inay dadka soomaalida soo dhex galaan. hadday soo galaanna orod ku dhex mara magaalada. markii uu fikradda ku celiyey ingiriiskii wuxuu ku taamay inuu meesha qabsado oo heshiis la galo soomaalida si ay u yimaado. umay suurtogelin ilaa 1885 ka hor. heshiis buu la galay, ciisahu heshiis la galay, gadabarsigu heshiis la galay, habrawashu heshiis la galay, warsangeligu heshiis la galay. dabeetana waxay isku bedeshay waan ilaalinaynaa, yurubta kalaa naga ilaalinaynaa, iyo protectorate baa tihiin, waayo waa nila qabsan doonaa. runtood bay ahayd. jarmalku east africa u qabsaday, muxuu ahaa tanzania. ingiriiska wuxuu qabsaday muxuu ahaa kenya, muxuu ahaa iyo somaliland. talyaaniga wuxuu qabsaday koonfurta soomaaliya. faransiiskii wuxuu qabsaday jabuuti. sidai uu run bay ahayd in lagu soo socdo. miniliga ka qayb galay shirka loodhan jiray conferencekaasi berlin, ayaa markuu soo noqday wuxuu yidhi bad ma lahayn markaas ethiopia, bad xidhan bay ahayd. labuu ku taamay siduu isagu sheegay, laakiin run maaha. wuxuu yidhi soomaaliya waxaan ka difaacayaa dadka yurubiinka ee soo galaya. marka laakiin inta aana sidaas samayn waanan iyaka mideeyaa. marka wuxuu jebiyey talyaanigii 1896. 1897kiina harab buu qabsaday. dabeetana uu soo socday, wuxuu doonay inuu koonfur qabsado. xayli salaase aabihii baa watay ciidankaas, sida new york times sheegayso. dagaalka halkaa ka dhacay. dadkii deganaa kiilka shanaad meeshaan u naqaana iminka 3,500 oo nin oo ethoobiana oo hubaysan oo xayli salaase aabihii wato, 69 qof baa ka soo haray. soomaalida way laysay. dib buu uga joogsaday minilig. ingiriiskina wuxuu ku soo xoogaystay in zaylac nin markaa cajiib ahaa oo loolan jiray Percy Cox ayaa wuxuu ku yidhi dadkii shalay aan heshiiska la galay 1885 miyaan iminka dhulkooga siinaynaa Ethiopia oo minilig siinaynaa. warqadihii uu diray markaa waxaa jiray wasaaradda isticmaarka iyo wasaaradda arrimaha dibadda. markii dambe waa la isku dari doonaa labada, wasaaradda isticmaarka iyo wasaaradda arrimaha dibadda, laakiin markii hore kala jaad bay ahaayeen. halkuu kuwii isticmaarka uma dirina wuxuu u diray kuwii arrimaha dibadda. wuxuu yidhi listen, dalkii aan shalay heshiiska la galnay, dadkaan la galnay waan kaga baxaynaa markaan dhulkooga minilig siinayno. markaa saylac baa iyuu doonayay. markuu qabsan kari waayey koonfurtii, wuxuu ku soo saylac inuu markaa saylac sidaasaa warqadii arrimaha dibadda tagtay ingiriiska ayaa jawaabteedu waxay noqotay okay, waa ballan qaadnay. waxaana markaa haysataa muxuu ahaa in victoria ka degtay meegta boqor baa haysta. haddabaad markii hore ilaa galdayse ayay ahaa xadku. faransiiskiina habiba ku noqday inaa galdayse laga soo raro oo boorama dusheeda la keeno xadkii. sababtoo ahayd wuxuu arkay tareenkii la furay muxuu ahaa 1902gii. wuxuu u arkay waa la dhisayay marka inay khatar ku tahay haddii galdayse ay xadku ahaado. marka waa la soo raray boorama dusheeda la keenay. marka hore waa la siin lahaa, laakiin ninka la idhaa
Percy Cox ayaa diiday oo warbixintaa bixiyey oo yidhi no. markaa ninka had iyo jeer waa in loo mahadnaqaa. laakiin Ethiopia sidii bay ugu taamaysay, waayo Eritrea Talyaani baa ka haystay, xagga kalena Faransiis iyo Ingiriis baa qabsaday. Eritrea waxaa ku dhacay bad xidhan baa ku dhacay. Soomaaliyana way qabsan kari weyday oo wayba dhaafiba weydada halkay ka tegi lahayd xeebaha Soomaaliya, waxayba soo dhaafi weyday in qaybtan u naqaano Ogaden oo 3,500 oo nin 69 qof ka soo haray. carada marka dambe waxa la istilaasa Soomaalida kula dhacay ha u qaadanina wax kale. aabihii baa lagu dilay taas meel lagu qoray Ethiopia, meel ay ku qortay iyo sababtu marka dambe u noqon doono muxuu ahaa boqor iyo waxa uu keenay because in aabihii baa ahaa ninkii ugu horreeyay ee isku dayay inuu Soomaaliya qabsado. waa taariikhan naga wada dadan, laakiin haddaad archive-yada haddaad gashaan يعني waxaa nagaga soo baxaya waxyaabo la yaab leh. waxaad odhanaysaa dadkiinu dad wanaagsan buu ahaa oo daacada oo dalkooga jecel oo dalkooga ilaaliya ayuu ahaa. maxaa loogu qabsan waayay sida dalal kale loo qabsaday, mise dalal kale la qabsaday? maxaa loogu la macaamili waayay Soomaaliya sida loola macaamilay dalalka kale? hadal iyo dhammaantii meeshan dad baa ku noolaa, way u soo halgameen, way u soo dagaalameen. sumcad wanaagsan oo ah dadweynuhu sumcad xun buu arkayay. ha isku tegina waa dad xun oo dadka laaya, xitaa dadka way cunaan baa lagu oran jiray. markaasa Yurub way ka yaaci jirtay Horn of Africa. may rabin inay yimaadaan, nina ma rabin inuu yimaado. sumcad wanaagsan xaggooga sumcad xun bay ka hadla, laakiin innaka way noo wanaagsanayd. waayo dalkii waa lagu soo dhici waayey. ciise meel aad ka martaan ma helaysaan. hadalka noocaasa uu badbaadiyey xeebaha Soomaaliya. hadal iyo dhammaantii dadka meesha ku noolay iminka awdal meesha sidaa la iskugu haysan jiray waxa weeye Gadabursi iyo Ciise iyo Habarawal an ilaha Soomaali. laakiin iminka waxa iga muuqda miidiyaha sheeko an yani ad ka jirroonayso oo Ciise leeyahay anuun baale, Gadabursina leeyahay anuun baale, Habarawalna anuun baale. laakiin sida runta wada leedihiin waan awooyaashiina way wada ilaalin jireen. kasoo qaad labadii boqor 1885 labadii boqor ee habarwadaaga ahaa, labadii ogaas midna Gadabursiga ahaa midna Ciise ahaa, maxay sameeyeen markay doonayeen inay qabyaalada tirtiraan? maxay sameeyeen? waxay dadka u kala bixiyeen magacii Ciise iyo Gadabursay tuureen. waxay u bixiyeen waxay xeebta degaan aan nidhaahno qorax joog ama orax joog, kuwa buuraleydana aan nidhaahno dhagax joog, kuwa beeraleydana aan nidhaahno dacar joog, kuwa gala ilaa buuraha Gurays ilaa Diri Dhabana aan nidhaahno jidigala. markii dambe waa la kala sooci jiray. magaalada Quljeed baan ku koray. odayaashu markay ku cadcaysanayeen gidaarada ay sheekeynayaan, dadkay soo gala magaalada ayay kala sheegi jireen. waxay dhahaan ninkaasi waa dacar joog, mid baan maalin ku idhi markaasi waa dhagax joog, kaasi waa jidigal. ma aha waa kaasi waa Ciise, waa Gadabursi, waa Isaaq. ma aha. markaasaan mid baan ku idhi hadda waan yarahay, sidaad ku garanaysaa inuu dacar joog yahay? kabihiisaan ka garanayaa buui. saddexda qolobo waxaa lahaan hab lagu kala gorto. wuxuu yidhi qofka in jidigalaha ama saddex jooga bilaawa iyo gudla tuubataa iyo kaba jaangariga. marka saasay ku kala garan jireen, qabiilku may garan jireen. marka hadday garteen meeshuu ka yimi way garan karaan, cidduu yahay way malayn karaan. marka Ciise Gadabursigu wuxuu ciyaari jiray kuncus wax la yidhaaho oo sidaa u eg muxuu ahaa in tan ay Maraykanku isku tuurtuuraan
footballka ayay ciyaari jireen had iyo jeer waa la isku dili jiray kow baa la iskaga siin jiray dhibaatadii baa badatay iyo magtii labadii boqor waxay dhahaan listen maanta wixii ka dambeeya laba arrimood baa loo ciyaarayaa ama dhagax joog iyo dacal joog baa wada ciyaari ama waxaa wada ciyaari in jidigala iyo marka saasay sameeyeen tiina badanaa way shaqayn weyday waayo jidigalana halkaasuu ku nool yahay dacal joogna xaggaas harawa valley buu ku nool yahay harawa valley buu ilaa diri dhabo u socdaa inagu waxaan ka naqaanaa intan ilaa wajaala ka bilaabanta ma aha ilaa harawu u xusqodaa ilaa diri dhabo harawa inta harawa iyo intii xeebta iyo intii dhagax joog ahayd markaa tiina way shaqayn weyday waxay u bedeleen agoon iyo aabboole waxaa la yidhi kolkii meeshii ciyaarihii la iskugu yimi waxaa la wixii agoon ahaayow dhinac u bax ama ciise ahaw ama gadaburise ahaw meel u bax kii aabbaha lahaayow kii agoonka ahaawna dhinac u bax kuwaasaa laga soo soocay kuwii ciyaarta ciyaarayay marka waxaa ciyaarayay agoon iyo aabboole nin aabbihii dhintay iyo nin aabbihii nool yahay ciyaaruhu sababteena nabad bay sidaa ku heleen haddaba dhulkan iminka aad isku haysaan dhul aad isku haysan kartaan maaha waad wada deganaan jirteen waad wada deganaanaysaan ama ciise ha ka taliyo ama gadaburse ha ka taliyo ama habarwal ha ka taliso waa dhulkii awoyaasheen waa kuwii awoyaashiin waad wada deganaanaysaan waxaad gashanaysaan xoolihiina investment baad gelinaysaan hadday tahay xeebta hadday tahay muxuu ahaa in bankaa gariyaad sidaa iminkaba jabuuti aad u wada degan tihiin oo ciise iyo gadabursi iyo habarwal u degan tahay baad u wada deganaan kartaan meeshan xundhurta inoo ah awal from berbera to Djibouti to diridhaba sidii awal baad u deganaan jirteen baad u deganaanaysaan ilaahay wuxuu yidhi kullo qof wax kasta oo ku nooli uu dhiman doonaa wejiga ilaahay unbaa ku soo hadhaya waa aayad qur-aana aayadda qur-aanka ma beenin kartaan wejiga ilaahay unbaa ku soo hadhaya wax kastoo kalena wuu tegayaa wa kullu min calayha fan waa tegayaa nin gabayaa ah oo cajiiba ayaa nebi maxamed markuu soo baxaya calayhi salaatu wasalaam intuuna risaalada keenin baa wax la tusay wuxuu arkay in markii ugu horreysay oo bilaabay nebi maxamed in laga hor imanayo ninkanaa wuxuu yidhi waa nin wanaag nii wada ma diidi kartaan waa nin wanaag nii wada qurayshay ma diidi kartaan suuqulcukaad meel la yidhaaho oo ku taalla maka oo dadka gabayaadihii ku tartami jireen oo already 7 gabay oo ka yaabiyey carabta ay suran tahay macalaqaatu 7 ay kabcada suran tahay buu ninkani isa soo taagay maalin maalmaha ka mid ah suuqulcukaad markaas wuxuu yidhi ayuha nnaas ismacuu wacuu ina man caasha maat waman maata faat wakulu man huwa aatin aat alleyli daaj والسماء ذات الأبراج أين آباء وأجداد وأين فراعنة شداد يلي إن وضد يهو مقلع اسمعوا وعوا المقلع أو اللي قف كستو أو نولا أو دنت قف كستو دنتين أو تجي
wixii soo socdaa uu soo socdaa, wixii tegayna uu tegay. adduunka eega daat al-abraaj ee buruujiyada faraacintii aaway aabbayaasheen aaway ajdaaddeeni ayna aabaa'u walajdaad wa ayna faraacinatu shidaad aaway faraacinadii xoogga lahayd ee samaysay ahraamta weli adduunku la yaaban yahay sidii loo sameeyey aaway buu yidhi waktigaa cunay waktigaa cunay dadkiina ku nool awdal iyo jabuuti iyo diridhaba waxaan ilahay ayna alaabaa wa ajdaad wa ayna faraacinatu shidaad laqad akalahum dahr waktigaa cunay wamazaqahu bitataawulihi dherarkiisana uu ku burburiyey war heedhaha meeshan waad ku noolayd waxa weeyaan meel aad ku noolaan jirteen wixii noloshii hore way tegtay nolosha maantaa taagan ta maantaa taagan ku wada noolaada salaadiina tukada soonkiina haya sikadiina bixiya sidii aw xeerkii ciise iyo gadabursiyeed ku wada dhaqmi jirteen ku dhaqma xeer ciise waa xeer ciise keligii u ah oo isku dhaqo oo nabad ku yahay oo sida runta ah markay isticmaalayaan qayr caadi ah wanaaggiisa miyaad aragteen qabiil dhan oo intay soo ooyaan jilbaha ku soo socda oo boqorka ku odhanaya waan gafnaye ciisa ku gafnaye mag iyo mawlax wixiina laga rabay waan bixinaynaa xaggee lagu arkay soomaali sidaasoo kale ah ciise waa kaa weeye way kala dambeeyaan xeerkaana kala dambaysiiya waa waxna lagu farxo oo la dhigo oo jaamacadaha lagu dhigana way tahay ka kaale xeer gadabursi baa jira waxaa kaloo jira xeer ka dhexeeya ciise iyo gadabursiga waa 3 xeer soo ma arkaysa mid ciise leh mid ciise gadabursi leh midna gadabursi leh ka gadabursi isagaa isku dhaqa waad maqasheen cali libaax hadalka laga soo gaadhay xayn gogole xaal male waa xeer cusub oo soo galay xeerka gadabursiga waa loo tashaday dhalinyaradii baa u tashatay markii dambe cali libaax dhalinyaradii baa xumaysay waxaa ka iman doonta kelmadan ah xayn gogole xaal male xagga ciisahay noqotay xagga xeerka ciisaha iyo gadabursigay noqotay xeer baan wada lahayn gadabursi iyo ciise oo isku dhaqaan ay ku kala dambeeyaan inay wada nool yihiin way isguursadaan guurkoogu xeer buu lahaa way dagaalamaan dagaalkoogu xeer buu lahaa way isdhexgalaan dhexgalkoogu xeer buu lahaa tusaale ahaan xeerka ugu adag ee ugu qalabsan ee ciise iyo gadabursi ka dhexeeya wuxuu ahaa ka ah ciisow haddii nin gadabursiya oo socoto ah oo dhulkaaga maraya ama dhulkaaga ku nool hadduu dhinto magtii baadna siinaysaa ciisow iyo waa yahay gadabursow nin ciise hadduu dhulkiina ku nool yahay ama yimaadou socoto yahay oo ku dhinto si ilaah mooyaane si kale u dhinto magtii waa aniga rabnaa iyo waa yahay ciisow waan bixinaynaa xeerka ugu adkaa ee ugu qalabsanaa kaasuu ahaa sababtaasaana nin ciise ihi nin gadabursiya ugu dili karin dhul ciise sidaasaana nin gadabursi ihi nin ciise ugu dili karin dhul gadabursi
kii ugu dambeeyey nin ciise ah ayaa waxaa laga helay oo meyd ah buurta libaaxley. libaaxley waa buur kala badha xeebta iyo oogada gadabuursaa degan. jibriil yoonis iyo maxamed case ayaa degan oo gaar ahaan bahabar celi ah. ciise magtii buu soo doontay, magtii baa naga rabnaa baa layihi. ninkaa lama oga ma masbaaqaniini, ma mowtulqaflu u dhintay, ma hara arataag buu u dhintay. maya, xeerku wuxuu ahaa haddii au ku dhinto waad bixinaysaa magta. ciise magtii buu soo doontay, bahabar celi buu u yimi. bahabar celiyey magtaana laga rabaa. bahabar celi waxaa u timi jibriil yoonis, waxay idhaaheen magtii aan bixino ninkii ciise. jibriil yoonis marka qaarkood waa suflabood, wuxuu yidhi bahabar celiya iska bixi magta, adigu dhexdaadii ku dhintay ya iska bixi magta. marka hadduu annaka jibriil yoonis dhexdeeda ku dhimi lahaa, jibriil yoonis baa bixin lahaa. laakiin maxamed casow ama bahabar celiyey markaa maxamed case ma taagna, bahabar celi bay taaganta. bahabar celi iska bixi. bahabar celi haddaan tilmaam naga siiyo, odaygii waxaa ka mid a odaygii xaaji diiriya la oran jiray, ama markii dambe loo bixiyey muxuu xaaji diiri ee xakumi jiray zeylac, in ka guuray markii heshiiska ay galeen faransiiska ee magaalada jabuuti la sameeyey, tareenka la sameynayey. waa odaygii la yidhi wuxuu bixiyey magaca ah French Somaliland, isaga oo matalaya soomaalida. xagga kalena canfarta ayaa ka marmaysay oo lahayd waa in loo bixiyaa canfar, French Canfar territory. qolooyin carab hoo joogayna waxay yidhahdeen carab ha loo bixiyo. waxaa la hadda muslim aan idhaahno, waxay dooneen inay carabtii khiyaameen soomaalida. waxay idhahdeen dhegeysta, muslim baan wada nahay sow maha, ha soomaali iyo cafar iyo carab anu bixino saaxib muslim alfaranji. xaji diidi buu ahaa ninkii muxuu ahaa ku guuleystay isagoo soomaalida matalaya, gaar ahaan ciise gadabuursi, ku guuleystay in la yidhaaho conference de Somali. bahabar celi waxaa kaloo ka mid ahaa ninka la odhan jiray jaamac saylici ee ahaa senatarkii ugu horeeyey jabuuti ee faransiiska, baarlamaanka faransiiska ku jiray. waxaa ka mid ah bahabar celida anii sheegayo ninkii ra-iisul wasaaraha muxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa muddada dheer, cabdiraxmaan saylici Somaliland. in dadka lagu yidhaaho bahabar celi waa dadkaas weeye. in bahabar celiyey iska bixiya bu jibriil yoonis yidhi. bahabar celi way iska bixas yidhi, berri hanu odhanina libaaxley waa nala leenahay, waan bixinaynaa. bahabar celi way bixisay magtii ciise siisay. ninkii cidlada ku dhintay ciise magtiisii waa la bixiyey. wuxuu ahaa kayskii ugu dambeeyey aan sheekooyinka odayaasha ka soo gaadhay weeyaan. waagii dhaweytay dahabka la isku leynayay ee lalahaa dhulka emerald baa laga helay, wuu jibriil yoonis doonay inuu emerald ka qato. bahabar celi waxay tihi maya, waa ninkii diiday, waa ninkii ka heshiinay taas, nagu iman mayno libaaxley annakaa leh. miyay ku dagaalameen jibriil yoonis? miyay kumay dagaalamen? way ogolaadeen. ninku haddii gar laga helo oo ogolaado waa nin raga wey. way ogolaadeen in saasay sheekadaasi xeerka ciise iyo gadabursiga qodobkiisa ugu xumi kaasoo ahaa. qodobka ugu xumee kale wuxuu ahaa ciise iyo gadabursiba ninka qarbi dalooliya
qarbad biyo aaminka dalooliya inaa magtii dadkii cabbi lahaa laga qaado taasi waxay keentay inayna ku dhici karin nin ciise ama nin gadabuursi auna ku dhici karin qarbad inuu dalooliyo haba yaraatee xeerku wuxuu ku yimi arrin hore oo dhacday oo nin qarbad dalooliyey oo caruurtii cabbi lahayd dhimatay haraad darteed dhib kasta oo dhacday dhulka ciise gadabuursiga xeer cusub bay keentay xeerka cusub ama way wada lahaayeen ama mid baa gaar u lahaa waxaa jira markaa xeerar fara badan oo ciise gadabuursiga ka dhexeeya oonu qorayn laakiin dadku ku dhaqmaan ayaa jira maalin kalan ka hadlay xeerka gadabuursiga waxaa baabiiyey dowladda ingiriiska iyo Ethiopia labaduba way absorb gareeyeen xeerka markaa dhexdhexoo loogu dhaqmo mooyaane waxaa ka sheekeeyey awdaahir afqarshe oo dhulbaanta ahaa oo ahaa ninka booliiska xukuma waqtigii ingiriiska magaalada Boorama ayaa ka sheekeeyey sheekooyinkii ugu dambeeyey ee xeerka gadabuursida oo laba qolo isku qabatay oo yaxyax geliyey ninka la yidhaahdo awdaahir afqarshe ayaa ka sheekeeyey arrintaas markaa kuma dhaqmaan xeerka iyagoo waxay xeerkii wuxuu u gudbay qoys muxuu ahaa oday ayuu u gudbay ilaa heer ay noqotay abar cafaan inay xeerkeyga lahaato makaahiil xeerkiisa lahaado muxuu ahaa in maxaa casi xeerkiisa lahaado haddana xeer ka wada dhexeeya oo xagga magta iyo guurka ah aw jiro iyo xagga istaakulaynta ay jiro hada lee dhammaantii ciise gadabuursiga habrawal way ku wada nool yihiin triangle-kan waxaa loo doonayaa inay nabad ku dhammeeyaan arrinka ugaaskay noqotay waagii 10 sano ka hor waxay ahayd ma garanayo waqtigay ahayd 2010 miyay ahayd ka horreysay waqtigii muxuu ahaa in ugaaska la boqorayay ugaas Mustafa waxaa la isku qabsaday in lagu boqoro in lagu calaamo saaro lagu calaamasho caano shubo magaalada Sayla xeer ciise weeye waa run garbay ahayd laakiin daw ma ahayn garbay ahayd laakiin daw ma ahayn garbay ahayd oo dee dhul meesha meel kastoo ciise joogo in lagu caano shubo weeye oo ciisaha la baro ugaaskooga waxay loo fahmi waayey ugaas xasan xursi ayaa muddo dheer hayay boqornimada 60 sano iyo dheeraad markaa dadku wayba ilaabeenba nidaamkii xeerarka way ilaabeen laakiin meel kasta oo ciise joogo waa lagu caleeno shubayaa muxuu ahaa in sidaasuu Sayla waxaan ahaa ninkii sii daayey barnaamij ka sii daayey TV-ga anoo u sharxaya gadabuursiga muhiimadda ay tahay inay soo dhaweeyaan ugaaska oo weliba Sayla uga horeeyaan inay soo dhaweeyaan ninkii hadalkaa yidhi baan ahaa iminkana waxaan leeyahay ciise haddii au ku muxuu ahaa in furayo buug Sayla ha ku furo weliba museum ha u sameeyo oo buuggana ha dhigo xeerka oo saan ku qoran ha dhigo Sayla samaroon bay noqotay dee Sayla ciise kuma diidana waad ogtihiin taariikh ahaan in dixda tukushi kala barto ciise iyo gadabuursiga laakiin miyaa loo diidaa ciise inuu bulaxaar ku noolaado maya ninka gadabuursi miyaa loo diidaa inuu ku noolaado fayaanbiiro iyo diri dhaba iyo muxuu ahaa ingaldaysa iyo danwalle iyo muxuu ahaa dikhil iyo Jabuuti miyaa ninka gadabuursi loo diidaa inuu ku noolaado halkeed ka keenteen fikirka ah ciise shaqo kuma laha Sayla meeshaad ka keenteen ma garanayo waan garanayaa qolooyin yar aan weligood ciise arag ciise la noolaan
ciise dhexgelin ciise ka guursan oo Ethiopia inay badanaa waxaa wadwadaan oo iska dhigaan rag wadaniina no ciise waxba kama taqaanaan niman dhalin kama dhalan maad dhex joogin markaa faraha ka qaada arrinta ciise iyo gadabuursi faraha ka qaada iyo kaa xalilan waxa u dhaxeeya waa arrin qoys oo kale weeye waa arrin qoys oo kale qoys 8 caruura leh 4 hablood iyo 4 wiil wax badanna haysan quraacna loo soo wada dhigay qaar baa iska qabsan ma jirtaa sidaas mise ma jirto odagii islaamta isqabsan ma jirtaa sidaas mise ma jirto way jirtaa arrinta ciise gadabuursi waa arrinta waa qoyska 8 caruur oo kala leh weeye way iska qabsanayaan markay doonaan way kala gursanayaan markay doonaan way isfurayaan markay doonaan idinku dacaayadda ka daaya dacaayadda iyo xumaanta iyo dhex ilaahay muxuu ahaa dadka fidnada wada muxuu ahaa inuu yani waxa weeyaan ma jecla ka daaya fidnada dadka in aan hadalka waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaa laga yaabaa inaad saran ninkan muxuu ka hadlaya in qaarkood silahaa mucayday idil kulmiye garweyne ciise ahayd nin awowgayaa la dilay 3 sano ayaa lala'aa istaqfurala 2 sano ayaa lala'aa oday kulmiye garweyne la yidhaaho oo ciise ah oo sheekh oo weli ah ayaa maalmaha ka mid ah ciid buu ka dhex kacay markaasuu yidhi waa ninka caynkaasa ee hebel ee jibriil yoonisa magtiisii hala ii soo doonto ninkaa dalkiisa lama ogeyn ciddishe lama oqoon laakiin ninka ciise wuxuu ogolaan waayey inay dhagari reerkiisa soo gasho inuu ninkan inankiisu dilay inuu magtii siiyo dadkii laga dilay jibriil yoonisa lagu yidhi magbana la siinaya maxaad malaynaysaa meel kastay ka yimaadeen way soo diyaar garoobeen wuxuu yidhi kontonna waa iga gabadh kontonna waa iga geel kontonkii geela halkii baa lagu qashay idil kulmiyana aabbahay bay dhashay wanaagga noocaasa ayuu ku soo wada noolaa ciise iyo gadabuursi iminkana tii oo kalaa rabnaa ma rabno ciise iyo gadabuursi isdila isxumeeya isdhaca been isku sheega waxyaabahan ciise ku jecela waxaa ka mid ah ammaanada nin baa waxaa la yidhi nin ciise uu u dhiibtay tulud wuxuu nin Jabuutan galaya bender baa la oran jiray waagaa dhow benderkan galaya xoolahaygii tuludaasaa ka soo hadhay neefka geelaa ka soo hadhay ii hay niyo anigu benderkan galaya Jabuuti ninkii baa 20 sano kadib soo noqday isagoo xoolaystay dhulkii miyigiiba ku soo laabtay odaygii baa u yimi loo dhiibay tulidda warya waa ninka dee 20 gubaad maqanayd anigu xoolahaygii way dhammaadeen kuwaagii baa nool ee iga kaxayso markaasuu ninkii yidhi maxaa tidhi tuliddaadii waxay dhashay intaasoo geela anigu xoolahaygii way dhammaadeen geelaygii waxaasi adigaa le iga kaxayso ninkii muxuu samayn lahaa wuxuu yidhi wada qaado ninkii kale ciisaa ku odhanay war wada qaado eeg aaminaadda iyo islaamnimada iyo wanaagga markuu ciise yahay markaa
هلا يصدح قالوا هل يسامحوا وقاسك السود ويا إن وحيابها بوليتيك إن نفلا هين وحكوا قلني وحبها كسوقاتنا إن عيسى وحو قشانيا محوها investment سكولو لسيا ودوين بو لسيا عيلال بو لسيا oggolaada masaajiduu dhisayaa oggolaada maxaan sidaan ilaah dee waad samayn weydeen idinku ciise in wax sameeyana ma doonaysaan idinkiina wax samayn maysaan haddaad gadabursi tihiin gadabursi ingiriiskii laga soo bilaabo carruurtiina ugu horreysa wax iskuulla gala عمود كي عيري قابا كيمي كي لاسعانود كيمي كي الهرقيسية برعا كيمي بورو ميسكوين ماتيني وحباي كبرتين إنك نعروتي نودن باقشان إن بدن باد مقشان سلامان قالوا بورمان وحكو صوبرت بيحيو بورمان وحكو صوبرت بالقف إساقا أونا oo maanta nool oo madaxa oona boorama wax ku soo baran ii sheega sidoo kale carruurtiinuna sidaasay uga baxayeen 760kii markaan burca tegey een hargeysa tegey madaxda oo dhan gadabursi ahaa lama lahayn ninka gadabursi wuxuu madax noogu yahay lama lahayn ninka bal ka waran آدم إسحاق أحمد أو تيجرس يونينكا كم مدحا أو كلجي قد بورسيا أو إسحاق ورنبا أطورتي إنه نقضه معلك معلمين تهوغانية ما قبيالات بيا جرتي ما قبيالات بيا حيد ما قبيالات بيا إسحاق شقيني ما عرورتي نيوايا ذاك صوبح لحنا ما يهي كور يكوي كدن بيي intood gacmaha ku qaadeen baad koonfur ku sheedhiseen koonfur kamana soo noqon haddana 90kii kadib jaamacad baad samayseen 25 sano laga baxayay kun qof baa ka baxayay 25 kun oo qof intood sida u qabateen 25 kun oo qof oo beerihiina u iibiseen oo dukaanadiina u iibiseen oo xoolihiina u iibiseen oo wax kasta u iibiseen oo iskuul ka saarteen bal intoo sida u qabateen bad sheediseen haddana waxay ka shaqeeyaan Kismaayo Baydhabo Burco Hargeysa Boosaaso Garowe ama waa dhakhtar ama waa macallin investment-kiinii Soomaaliyaad geliseen Soomaaliyeen ogtahay I don't know ma ogi laakiin waxaan ogahay xoolihiin iyo xiniyihiiniiba intood boorama ka qaadeen inaad Soomaaliya ku shaydhiseen ciise hadduu markaa dhulkan bannaan hanti gashanayo ha gashado waan soo dhawaynaynaa waxaan leenahay soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh